السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal ku soo dhawaada silsiladii taariikheed ee aynu kaga warramaynay taariikh nololeedkii sayfullahi almasluul seeftii ilaahay ee galka la'ayd Khalid ibn al-Walid al-Makhzumi radiyallahu anhu. walaalyaal xalqadantii ku horeysay waxaynu ka soo warramnay Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu deegaankii uu ku dhashay iyo qabiilkii uu ka soo jeeday. iminkana waxaynu ka warrami doonaa insha Allah ta'ala faamilkiisii iyo ehelkiisii uu ka soo jeeday Khalid ibn al-Walid. aanu ku horumarno hooyadii waxa la dhihi jiray walaalyaal Khalid ibn al-Walid Lubaba as-Sughra ayaa la dhihi jiray oo waxay la dhalato ay walaalo la ahayd يعني أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. نبي عليه الصلاة والسلام هواني وقبي ميمونة بنت الحارث لديه تشري أي ولا الله وحي كلا الله دلتي ما ولا الله هاي هواني كلا لديه تشري لبابة الكبرى هواني دي نوحا قبي عباس بن عبد المطلب نبي أديركي marka Abdullah ibn Abbas oo Abbas uu dhalay ya Khalid ibn Walid waxay ahaayeen habrawadaag subhanallah tanka kalena yani Khalid ibn Walid habaryartii waxa qabay nabigeena alayhi salatu wasalaam waa Maymuna bint al-Harith weeye. Khalid ibn Walid abihi walaalyaal waxa la dhihi jiray الوليد ابن المغيرة. وليد ابن المغيرة وانين وحوها سبحان الله إلهي وحو البوود ما يستري يعني الوحيد بلده تشري عربت حلقي عنه ريحانة قريش يعني غير قريش نينكي أي مركا نكون ددوك سنيسي نين حول اللسيي أو مركا برواقيسا oo beero fara badan leh oo sidoo kale qurux badan aftahana fasaaxa leh balaaqa leh subhanallah caruur fara badan loo darsiniyo dheeraada ayuu markaa ahaa ninka la yiraahdo Walid ibn Mughira walaalyaal madaxtinimo wuxuu ka gaadhay in uu bedelo Abdul Muttalib oo nabiga awowgii ahaa markii uu fadhiisan jiray hadqoodalka ama Kacbada hadkeeda ama hooskaas ayuu marka Abdul Muttalib fadhiisan jiray sidaynu siirada nabigeena ku baranay. marka halka markuu fadhiisto Abdul Muttalib waxa la fadhiisan jiray caruurtii uu Abdul Muttalib u dhalay ee marka nabiga adeeradii ayaa hareertiisa ama furaashkiisa iyo joodarigiisa fadhiisan jiray. kolkii Abdul Muttalib uu dhintay waxa booskiisii buuxiyay ninkan la dhahdo Walid ibn Mughira. halkaas ayay saadanimadiisii iyo madaxtinimadiisii ay gaadhay subhanallah. wuxuu ahaa nin xoolo haysta sida la tilmaamo maariikhiintu waxay dhaheen ma sanadka iska dhan keligii ayaa xoolihiisa gaarka wuxuu ka bixin jiray daaha marka la suro Kacbada ayuu keligii bixin jiray. reer Quraysheed oo dhan markay isu tagaana sanadka kale bixin jireen subhanallah. isaguna keligii hal sano ayuu qaabilsanayo marka uu bixin jiray subhanallah. waxa nin yani deeqsiya oo gacan furan oo marka sifooyinka carabtu lagu yaqaan ama ku faani jireen waxa kamid ah hadiye jaraale inay kariim yihiin ama deeqsiyayaal yihiin. ninkan laftigiisuna sifada uu lahaayo wuxuu ahaa nin yani gacan furan oo dadka waxsiiya ama dadka quudiya gaar ahaan dadka marka yimaada ama soo booqda beedka Ilaahay xaramka yimaada ama xajkii jaahiliga marka yimaada subhanallah. waxa la tilmaamaa sidoo kale Walid inaanu khamriga cabbi jirin hadiye jeeraalana gaalada xitaa kuwada aqliga badan kuwada marka maskaxda leh ma cabaan khamriga waayo waa wax yaro radii oo yani wax liita weeya khamri cabidu. xitaa marka gaalada madaxdoodu ama kuwada fakare marka filosofiyadoodu ma cabaan khamriga.